maalmood wixii ka dhacay faashir madbaxadii ama jazaradii ama xasuuqii ayaa hal mar indhaha adduunka soo jeediyay laakiin labadii sano la soo dhaafay Suudaan humanitarian xun dhibaatooyin aad u xun runtii ka jiray laakiin arintaas foosha xun ayaa keentay in adduunka indhihiisii ay soo jeediso oo nimankaas maleeshiyaadka daglo raacsan ay xasuuqa ay geysteen laakiin intii aan Umar Bashir la ridin oo xilka laga tuurin Hamiti aan hadda hogaaminaya kooxda RSF iyo Burhan labadaba gobolkaas Darfur ay joogeen Burhan wuxuu ahaa ciidanka regular army-ga oo haystay ninkan maleeshiyaad ay dawladda Bashir dacminaysay taageeraysay ayuu haystay labadooda kacdoonadii waxay taageereen Bashir lagu riday ka dhanka ahaa ayagoo labadooda aaminsan inay dalka u tashakaraan waliba Burhan oo aaminsana in uu garabka helayo taageero ah Hamiti oo ka helayo Hamiti nin garaado general la siiyay oo iska shacbiya oo maleeshiyaad qabiil hogaaminaya ayuu ahaa labadooda waxay qayb ka ahaayeen dagaalkii Yemen oo ciidan ahaan loogu rartay Imaaraadka iyo Sacuudiga ay u rarteen oo ay qayb ka ahaayeen marka natiijada hadda taala iyo loolanka hadda yaala Suudaan dhexdiisa ka taagan asalkii wuxuu ku hayaa loolan dalka gudihiisa ah inta badan wadanka asaga markii gudihiisa ay loolan ka dhacaan ayaa awoodaha shisheeye isku dayaan inay qolobaba ay ka faa'iideysato qolaa marka si togan iyo si taban labadaba in looga faa'iideysto hadda dawladaha Masar iyo Sacuudiga kaleeto waxay aad iyo aad isugu dayaan in ay taageeraan garabka militariga taageero u muujiyaan laakiin ma hubo inay ficli tahay iyo Turkiga iyo Iran kulliba dawladaha dawlad Imaaraadkana waxay taageersan yihiin sida la sheego RSF ay taageersan yihiin kooxdan Hamiti ay taageersan yihiin iyo ayada wixii markaas xaliif la ah oo ka dambeeya ay taageersan yihiin jabhadda oo Hamiti taageersan yihiin marka dhibaatada ugu weyn marka meesha ka jirta waxay tahay international order-kii aan sheegnay awoodii Mareykanka adduunka booliska ugu ahaa oo wax ku kala celin jira meesha ka baxday Mareykanka wuxuu noqday siyaasadiisa siyaasad transaction ku dhisan masaalix ganacsi ku dhisan oo pure ah marka White House-kii ama awoodii Mareykanka cidii markaas jeebkeeda qoyn hayaaba access u leh oo ka dukaamaysanayso ka soo adeeganaysa wixii la dhihi jiray human rights values iyo ay dhihi jireen galbeedka iyo runtii dagaalkii Ciraaqna waa sheegay Afghanistan iyo financial crisis-kii iyo COVID-kiisa u dhaceenba waxa soo dhan waxay noqdeen wax iska noqday secondary ama iska noqdeen marka aniga waxaan isleeyahay dawladahan middle size power-ka ah aniga waxaan ku tilmaamaa responsible maaha oo ugu yaraan dawladihii kale Europe iyo dagaaladii kooda adduunka iyo labaad ku soo gubtay faraha ka soo gubtay 60 milyan iska soo dilay dagaalkii diimaha soo galay dad bisil oo responsible ahaayeen laakiin aniga waxaan isleeyahay dawladaha hadda middle size power-ka ah Suudaan ku rafanay iyo gobolkaba dad responsible inay yihiin anigu uma haysto dad ay institutionno oo international ay dabrayaan ama accountable ay u yihiin oo la xisaabtamayo ama la qabanayana ma aha intaas ku roonaa jireen Mareykanka inay yacdahan iyo galbeedka dawladaha ay xarigooda ay leejaanka ay hayaan maadaama tii aysan jirinin ayagiina dad responsible oo mas'uuliyad intaas la qaadi kara aysan ahayn ayaa waxaan arkaynaa faragelintooda inay noqonayso mid aad u foolxun runtii oo ka foolxun dawladihii kale ee galbeedka ay ahaa Soomaaliya saameyn ku yeelanaysa dabcan waa ku yeelanaysa Soomaaliya waan sheegay dawladaha middle size power-ka waa joogaan laakiin inaan fahno waaye Soomaaliyana dawladaha qaarkood waxay xoojiyaan dawladda federaalka ah oo waxay aaminaan inay dantooda ku jirto centerka in la xoojiyo federaalka in la xoojiyo ay dantooda ku jirtay aaminsan yihiin dawladaha qaarna waxay aaminsan yihiin periphery-ga ama maamulada gobolada ama Soomaaliland oo gooday in la xoojiyo aaminsan yihiin dantooda saas ku jirto laakiin hal mid Soomaaliyeed ogaataan rabaa dadka walaalahay Soomaalida xaaladda annaga aan ku noolnahay oo maamuladan kala qaybsanay federaalka ah ama Soomaaliland oo go'itaan sheegatay xaalad cid kale noo sameeyay ma xaalad annaga aan abuurno waay xaaladaas marka dawladaha markay ku imaadaan qaarna dantooda waxay ka arkayaan inay gobolada
iyo Somaliland ay jirto qaarna waxay ka arkayaan dawladda dhexe inay jirto ay arkayaan maadaama dawladda dhexe oo Soomaaliyeed oo dalkooda xukuntaana jirin kuwii dawladda federaalka aadayna limitationkoodii tabartooda markii gobolada la aaday arkayaan kuwii gobolada iyo Somaliland aadayna sharciyadii iyo aqoonsigii dawladda Soomaaliya inaysan ka maarmin ay arkayaan marka waxay u baahan tahay Soomaaliya hoggaan waxay u baahan tahay runtii masaalixdaas iyo dawladahaas isdagaalaya iyo masaalixdaas isdiidan si xigmad iyo aqli ah ku maamuli kara ayna ka bilaabanayso dadka Soomaaliya horta inaad ku qanciso dawladnimada Soomaaliya lagu qanciyo oo ayaga ka bilaabata alle waxa qaybsan waa annaga wax laga faa'iideysanayna waa annaga